recording. Okay. So inshallah maanta waxaan bilaabeynaa qaybtan multi-table queries and data modeling markay noqoto backendiga. So waxaan soo baranay relational database wuxuu yahay, waxaan soo baranay tablada waxay yihiin, sida iskugu xiro waxyaalahaas soo baranay, schema design karaan soo baranayo maxay tahay schema, sidee la isku aadiyaa casharaas ku soo qaadana. Casharka marka saafila casharka shanaad waaye qaybta backendiga. maanta waxaan baranaynaa marka waxa la yiraahdo multi-table queries iyo data modelingka. marka waxyaalahan baranayna waxaa kamid ah marka aan soo yiri dhaweeyo waxaa kamid ah foreign keys, SQL joins, waxaan kaloo baranaynaa normalizing model oo micnaheedu yahay in waan baran doonaa waxa ku saabsantaa laakiin in database ku ahaado database fiican oo si fiican u shaqeynayo. waxaan baran doonaa relationships sida camal one to money, money to money iyo one to one, sida loo kala isticmaalo iyo waxyaalaha ku kala fiican yihiin ayaan baranaynaa. So waxyaalo kale oo badan ay jiray oo ku jira halkan oon kala shaandeeyay. waxaa is iri xoogaa focuskana saarna database-ka iyo SQL-ka yaa fiican si aad 100% u fahantaan kabacdina aan u gudubno maxaa la jiray u gudubno dhinacan oo JavaScript see loogu sameeyaa waxyaalahan. So hadda waxaan ka hadlaynaa kaliya waxa SQL kaligeed wali JavaScript ma aadin. So waa maxay foreign key marka? Foreign key muxuu yahay? Foreign key, ereyga foreign waxa waaye waa qof ajnabi camal waaye. So haddaa dhahdo qofka waa foreign micnaheedu waxa waa qof ajnabi ah, qof oo sokeeye ma ahan ama qof kudo ma aha, waa qof foreign ah wadan kale ka imaaday ama wadad kale weeye taas camal waa foreign-ka. So markaa maqashid arrimaha siyaasadda camal foreign affairs micnaheedu waxa waaye waa siyaasadda dibadda camal ama arrimaha dibadda. So foreign waa wax banaanka. So foreign keys marka waxa laga wadaa keys-kan waxay u taagan yihiin waa primary key-gii aad baratay waaye. So waana arki doonaa example loo tusaaya primary key-ga aad baratay waaye. So foreign keys waxay fundamental u yihiin ama aas u yihiin fahanka inaad fahanto relational database-ka ama databases sida MySQL inaad baratid iyo Postgres. waxaa asal u ah foreign key inaad fahanto wuxuu yahay. marka hore waxaan baranay primary key wuxuu yahay. primary key-ga waxa weeye waa table kasta waa inuu lahaado primary key oo ah number oonan soo laalaabanaynin oo lagu garanayo data kasta oo la geliyo table-ka. So taas waa barnay marka foreign key-ga marka wuxuu sameynayaa wada xiriir ayuu sameynayaa table-da kala duwan. Okay, so example halkan hadda aan ka soo qaadano. Example-ka marka hore aan sameyno horta example-kan. So let's go here. Si aad u fahantaan exactly waxaan ka hadlayno. waxaan sameynaynaa table kan ma garanaynaa soo zoom garan karaa. So just example-kan la raacinaa bas example-ka bas raacinaa. Give me a second. example-kan raacinaa waxaan sameynaynaa laba table aan sameynaynaa. midna waxa weeye waa farm name, midna waxa weeye waa rangers ka dadka beeraleyda ah. So aan sameyno. So kan waxaan u bixinaynaa farms. Table name farms amen. Okay. Save. waxaan ku daraynaa wuxuu leeyahay laba field uu leeyahay ID iyo farm name. Okay. So waxaan leenahay tan ID-gan maxaan u baahnay inaan gelino type-kee ka dhignaa? yaa iga caawin karo. ID-ga muxuu noqon karaa type-kiisa? optionadaan aan leenahay. ID kasta oo la sameynayo waa inuu ahaado integer. Integer inuu ahaado. badanaa waad adaa dooran kartid size-ka 20 iska geliyaa, laakiin waa inaad dooratid primary key. Of course automatic lagu ku dooranayo waxyaalaha u baahan tahay. intaan u jeedaa foreign key ku yaala laakiin ka foreign key ma aha. Okay. So ID waa gelinay. waxaan kaloo u baahannahay field kale oo ah farm name. Okay. So farm name-ka marka waa ayada ma ahan marka number ma ahan, waa just waa magac. So waxaan gelinaynaa waa string way ama text na dhihi kartaa. So badanaa kan waxaa kaloo oo la geliyaa let's see var jar na la geliyaa. So var jar-ka ugu fiican. var jar-ka waxa weeye waa
character kala duwan oo badan la gelin karaa sida numberada iyo stringska iyo at sign waxaas dhan la gelin karaa so kan marka 255 aan gelinayna si ay macnaha u ahaato wax weyn arrow increment ma ahan okaasa so allow null ma taabanayno waxaan rabnaa in uu ku qasbo qofka so labadaas hadda noo taalo farm name iyo waxaa noo yaala kan so I wish there was a hub locally or maxaa la jiray data kan ma kan waa just scheme design level so hadda marka labadan table kana sameynay information ku jirina waa kana waxa ku jiro hal farm ku horeeyma beerta ugu horeysa iyo beerta labaad ku jirto waxaana marka in aan sameyno table kale oo dadka iska leh beertan ay ku jiraan so table kale aan sameynayna waxaan leenahay insert table inta keenina waxaan leenahay tan waxaan leenahay rangers ka xaway waa dadka beerta ka shaqeeya waaya ama beeraleyda waa dhigi kartaa directly okay so let's save that add field of course markas id u baahan yahay so keep that in mind id primary key intaas uga baahannahay save and intan waxaa noogu taala ranger name so let's copy that okay ranger name waa integer waxa weeye waxaan leeyahay varchar 255 automatic no so copy gareeyay arrow increment ma ahan so intaan markaan dhahna hadda labadan so beertina waa haysanaa oo informationka beerta waa haysanaa informationki dadka beerta ka shaqeynayana waa haysanaa laakiin dhibka jira wuxuu yahay see lagu ogaan karaa hebel John Doe in uu ka shaqeeyo beertan inuu ka shaqeeyo see lagu ogaan karaa laba table kala duwan waaye oo aan islahayn marka waxaan rabnaa inaan isku xirno marka labadooda give me 1 second labadooda inaan isku xirnaa okay so inaan isku xirnaa rabnaa labadooda so waxaan rabnaa inaan dhahno John wuxuu ka shaqeeyaa beer hebel inuu ka shaqeeyaa rabnaa so waxaan ku dareynaa markaas waa meesha foreign key gu imaanayo so foreign key aan ku dareynaa so foreign key ga marka habka loogu daro waxa waaye waxaad sheegaysaa marka waxaad leedahay table-ka magaciisa ka bacdina id aa ku daraysaa table-ka magaciisa iyo id so waxaan leenahay farm so table magaciisa oo single ah oo keli ah and then id aa leedahay tan waxay qeexaysaa marka waxay leedahay farm id gan waxa uu shuqul ku leeyahay table kan uu shuqul ku leeyahay so hadda inta waxaan leenahay just integer caadi waaye intaas ka leedahay 20 iska dhadhim malahan inta marka dooranaysaa kaasa badanaana markii noqoto foreign key ga ma ahan maxaa la jiray primary key ma aha inta ma dooranaysa primary key intuu ka yahay table kan laakiin table kan kama aha primary key waxyaalahan kala dhan iska dhaafsa arrow increment ma ahan waxaan oo dhan ma ahan arrow increment qofkan garanayno waxa waaye id table kasta id-giisa waa inuu unique ahaado so for example hadda beeraha camalka ka hadlayno waxaan halkan beer kasta waa inay lahaato id oo gooni u ah so hadhoodii haddii oo beertan koowaad laga bixiyo beer kale lagu daro waxaan rabnaa in uuna soo laabanin 1 oo 3 kasii socda halkan so arrow increment saas laga wadaa waa number sii soconaya asaga iskiis u soconaya so hadda inta markaan dhahno foreign key wuxuu leeyahay table kee rabtaa kabacdina wuxuu leeyahay field kee ka hadlaysa oo rabtaa inaad ku xirtid so hadda okay safe markaan dhahno isku xirmanayaan soo jeedid so asaga isku kana point garana haddaan dhaqaajino uu ku point garana uu ku tusaayo meesha uu ku jiro foreign key gan meesha uu ka hadlayo so just like that halkan marka waa kana farm id okay so farm id gan hadda marka aan marka quiz gareeyo oo aan weydiiyo Jen Dunn beerte ay leedahay oo ka shaqeysaa beerta koowaad oo beach ranch so saas lagu ogaan karaa J Doe wuxuu ka shaqeeyaa beerta labaad oo ah kan
So hadhow waxa laga yaabaa waxaan daatada inay carrada ka badan tahay kun wax inay taa laga yaabaa waxaa ku ogaan kartaa ID-gana ku ogaan kartaa. Okay, so foreign keyga lagu sheegaa intaas waa macnaheedu waxa weeye laba table ayaa isku xiraysa oo relationship ayaa ka dhaxaysiinaysa inay wada xiriirkaas waxa wada xiriirinayo waxa wada xiriirinayo foreign keyga. Okay, so that's foreign key waaye. So foreign key are types of table fields used to create link between tables. Foreign key waxa weeye waa field oo table ku jirto oo loogu talagalay in ay link ku samayso laba table oo iskula xiriiriso sida camal primary keyga oo kan ah badanaa inta badan waxa weeye waa integer waaye number waaye kaas oo that identifies rather than store a data. Macnaheedu waxa weeye information ma kaydinayo fieldkan wuxuu samaynayaa clear identify ama wuxuu farta ku fiiqayaa table kale farta ku fiiqayaa ama field ay table kale leedahay farta ku fiiqayaa. However sidaas tahay whereas the primary key is used to ID a row in table, foreign key are used to connect a record on one table to another on second. So inta wuxuu leeyahay meesha primary keyga oo kan ah loo isticmaala in rowgan lagu qeexo, foreign keygana waxaa loo isticmaalaa in information ku jiro table kale aad ku qeexdid. Okay, so intaas waa sameynay wax su'aala markay noqoto foreign keyga. Any question? waxaan isku dayay in aan aad u fududeeyo oonan waxyaalo fara badan meesha soo gelinin. Just simplify it. Any question? Okay, so let's move on. Okay, so second thing mid labadan ka hadlayna waxa waa joint scan way. So joint scan waa wax aad muhiim ah markay noqoto maxaa la jiray web development-ga siibo SQL-ka iyo databases-ka. Joints-ka waxay naga caawinayaan in aan data aan ka soo jiidano table data kalena aan gelino. Okay, waa maxay marka joints-ka ayaga dhanba SQL joints. Okay, so haddaan sawirada fiirino waxaa arkaysaa waxyaalo kala duwan habab kala duwan jiro oo joints u shaqeeyaan. Badanaa waxaa la isticmaalaa join kan ugu horeeya bas la isticmaalaa inta badan marka qaarkood waxaa arkaysaa full join laakiin labadan badanaa ma arkaysid. So haddaa aragto micnaheedu waxaa weeye waa sidaan u shaqeeyaan. So micnaheedu waxaa laga wadaa marka so kaba soo qaad marka laba table aa rabtaa inaad isku keento. So table 1 iyo table 2 datadiisa inaad data ka soo qaadataa rabtaa table 1 datana ka soo qaadataa table 2. waxaa rabtaa marka labadooda inaad isku keento oo ay isla shaqeeyaan macnaha hal table cusub aad ka samayso datadaas. So let's say عمل example meeshaan noogu jira example-ka. Okay, so example waxaan fiirin karnaa waxaa jira marka ayagoo badan waa kuwana badanaa inner join-kan waxaa kii hadda tusaayo waaye oo kan ah join-kan ayaa inner join la dhahaa. Inner join haddaa maqasho micnaheedu waxaa waaye laba table ayaa waxaa laga soo qaadanaa informationkaas hal table ka sameynaysaa. waa information is leeyihiin waaye labada table macna isku aadan waan arki doonaa example kala duwan taas. So waxaana ficnaan lahaa inaan idiin sawiro. Give me a second, let me get aan soo qabsado baasha mouse-ka aan ku xirto computerka inaan idiin sawiro exactly tablelada iskugu xirmayaan iyo si iskula shaqeeyaan inaan tusaa fiican. Give me one second. haddaan haysto mouse-ka. Okay, so I'm going just need the mouse. Okay, so mouse can I start? So tan waxay naga caawinaysaa in aan sawirno wax. So waxaan sameynayna marka let's meel drone aan tagaynaa. Okay, so let's go to draw.io. I think you have website ka. Io website fudud aa jiro oo wax lagu sawiri karo. Draw app. Baalan haystay oo lagu sawiro laakiin
mid waxa jirta Google ay leeyihiin okay dib ma laha that's fine okay so just waxaan sameynaynaa marka okay let's go to white space aan u baahannahay white background okay so open this GLL okay so just space add aan u baahannahay bas waxweyn maahan so haddaan drawingka soo qaadano so markii aan ka hadlayno marka inner joinka waxaan jointskan laga hadlaayo dhan waxa waaye kaba soo qaad waxaa rabtaa waxaa leedahay dukaan camal aa leedahay dukaankaas marka waxaa rabtaa customerskaada waxa ay order gareysteen camal inaad soo qabsato information noocaas so laba table aa leedahay table halkan waa informationkii customerska intana waxa waaye waa informationkii orderska okay orderska marka orderska inta ku yaala marka waxay leeyihiin saan ka hadalnay foreign keygi leeyihiin oo hadda idin tusayay so order kasto waxay leedahay foreign key oo customer ah right so order 1 foreign keyga waxaa sameeyay let's say camal 3 customer 3 foreign keygiis waa kana customer 3 right so saas iskula xiriiraan so adiga waxaa rabtaa marka inaad ogaatid waxaa rabtaa inaad ogaatid hal customer let's say customer 4 orderadii uu sameeyo dhan inaad ogaatid so laga soo qaad waxaa laga yaabaa customer 4 inuu sameeyey 1 2 iyo 3 orders inuu sameeyey oo halkan micnaheedu waxay na tusaysaa in hal customer uu ordero badan samaysan karo markuu ordero badan samaysto 2 3 ordero badan markuu samaysto foreign keygu uu soo laalaabanaya so taasna niyadda ku haya so foreign keyga uu soo laalaabanaya oo 4 uu noqonaya customerkan 4 aa sameeyey wixii adee hartaa marka inaad ogaatay customer 4 informationkiisa inaad ogaatay so inaad ogaatid orderadii uu sameeyo dhan inaad ogaatay waxaa ku jira dad badanaa ku jira orderadooda meeshan so adiga waxaa leedahay markaasaa isticmaalaysaa marka joint waxaa hartaa inaad isku join garaysid tablekan iyo tablekan inaad isku join garaysid hartaa so waxaa kale oo rabtaa inaad soo jiidito customerka magaciisa right so intaa marka waxaa leedahay waxaad dooranaysaa marka orders aad dooranaysaa so orders aad dooranaysaa tableka orders meesha waxaa leedahay uu customer ID-ga CID aan soo laabanaynaa uu yahay 4 camal aa leedahay waxaa samaysaa waxaa ku join garaysaa leedahay hadda kan maaha exact codeka ma aha kan waa iska example camal join waxaa ku dhijisaa ama ku xirtaa tableka customers aan leenahay meesha waxaa leedahay meesha uu ID-ga caadiga oo kan ah halkan uu la mid yahay equal la yahay orderskan customer ID-giisa so waxaa leedahay customer ID meeshuu la mid yahay so condition aa samaysay meeshan hadda marka so condition aa samaysay ood leedahay micnaha tablekan ID-giisa meesha uu la mid yahay tablekan customer ID-giisa uu la mid yahay isoo jiid yaa leedahay so and then waxaa leedahay waxaa select garaynaysaa marka nameka iyo information kale u baahan tahay oo dhan waa select garaynaysaa so inta kugu soo dhigayaa laakiin markaas wuxuu sameynayaa table cusub sameynayaa oo la gelinaya informationkii conditionkan ka soo baxday so tana waxaa la marka join ama inner join aa la inner join waa la dhahaa okay tan waa tan ugu caansan badanaa la isticmaalo laba table oo mid uu leeyahay foreign key so kaas waa inuu qasab inuu foreign key leeyahay laba table oo xiriir lahayn lama samayn karo laguma samayn karo join laguma samayn karo so waa lagu samayn karaa taas ayaanan micnaa ben idin sheegin waa lagu samayn karaa laakiin waa in ay labadooda xiriir la leeyihiin table kale oo labadoodaba informationkooda leh so waxaa laga yaabaa table kale inuu jiro oo customers leh iyo table kale orders kana leh inuu jiro laga yaabaa taasna waxaa weeye waa full join ma taas waa inner join waaye laakiin
waa inaad samaysid calculation kala inaad samaysid taasna ma hadda wax xoog saarin waana intuu doonaa taas waxay ogtahay so hadda table cusub aan sameynay oo ku jiraan bas information key customer 4 orders kiisi hatta ka soo jiidan kartaa inta orders ka leedahay taariikhda ordergeesa waxaas iyo magaca iyo bla 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 adaa samaysanaysid waxaas oo dhan adaa samaysanaysid magacaada u sameynaysid iyo information kii wixii wax su'aala markii noqoto hadda tan inner join-ka si u shaqeyso waana intuu doonaa example oo aan gudaha u gelaynaa ayadoo exact example ah waan fiirinaynaa any question oo fahanka kore okay so haddaan example caadi inaan intuso marka waxaan u baahanay inaan tagno meesha lagu braaweeyo taasoo ah inaan aadno W3 schools inner join so W2 schools waxayna siinaysaa meel aan ku braaweyn karno informationkaas so waa kana marka syntax ina siisay ama just syntax kore waa kana so example kan ina siisay waxay leedahay marka halkan marka hore waxaad select garanaysaa table hebel waxaad select garanaysaa column hebel column name from table 1 inner join ama la xiriiri table 2 meesha table 1 oo kan ah ay magaciisa ama ID-gu noqon kara halkan ay la mid tahay table 2 magaciisa okay so and then diagram kan oo kaasa so let's say example marka isku aan fiirino braaweyno so waxaan sameynaynaa kan halkan iska tirtireynaa hadda for now so basically waxaan rabnaa marka hadda inaan sameyno waxaan rabnaa inaan sameyno in aan soo jiidano let's see sida hadda sameynayna camal so tablekan customerska waa kana customerska oo dhan ku jiro iyo tablekan orderska oo dhan ku jiro soo mujid so meeshan waxaa noogu taala marka customer ID aa noogu taala right customer ID aa noogu taala customer ID gaas marka waxaa weeye yaa ii sheegi karo waxay tahay maxay u taagan customer ID gan ID customerada dhan ID customerada dhan okay marka waa foreign key soo maaha waxaan ka hadlaynaa foreign key waa kana sidoo kale haddaa aragtid waxyaalahan camal oo just number bis meesha ku jiro oo halkan ay ku qoranta ID mar qaarkood waxa laga yaabaa saan in loo qoro mar qaarkood waxa laga yaabaa in ay leedahay underscore oo ID so waa garanaysaa kana sidoo kale waa garanaysaa inuu yahay foreign key so foreign key kana waa garanaysaa foreign key ma ahan ama foreign key uu noqon karaa let's double check so meel kala fiirinaysa table kale oo la dhaho orders ma jiro so foreign key ma aha waa ID caadi waa kan primary ID waa okay so hadda waxaan u baahanaa marka in aan soo jiidano let's see waxaan rabnaa customer oo informationkiisa dhowr meelood ku jiro inaan soo jiidano so let's say camal iska dhahano 55 aan iska leenahay so customerka 55 aan rabnaa inaan soo jiidano magaciisa iyo orderskiisa inaan soo jiidano halkan wax magaca uguma jeedaan soo maaha oo customerka ah waxaan rabnaa inaan soo jiidano order date-ka order ID-ga iyo magaca inaan table cusub sameynaan rabnaa laakiin magaciisa halkaa kuma jiro wuxuu ku jiraa meesha kale ku jiraa tableka kale tableka customerka laa 55 aan fiirinaynaa 55 waa kana okaasa waa old world so information sida soo jiidana rabnaa so saan taas sameyno meeshaan ku bilaabayna marka so exactly waxaan raacaynaa syntax-ka ay meeshaan ku qoran so marka hore waxaan dooranaynaa waxyaalaha u baahannahay inaan soo jiidano okay so waxaan leenahay select waxaan rabnaa inaan soo jiidano marka ugu horeyso tableka orders iyo waxaan rabnaa inaan ka soo jiidano dot waxaan rabnaa soo jiidano I think in la dhaho order date waxaan leenahay select order okay waxaan leenahay select order tableka orderka noogu soo jiid waxaan leenahay order date noogu soo jiid
waxaa kaloo u baahannahay informationka customerkana u baahannahay so taasna waxaa noogu soo jiidaa customers that I think customer name okay waxaan kaloo u baahannahay ha order is customers ka dhigistaan table name. oh yeah you're right orders and customers orders and customers nagu soo jiidaan leena so kuwan waa tableka waa so hadda meeshaan ugu horeysan sameynayna waxaa waaye wixii annaga u baahannahay oo in aan table cusub u sameyno yaan u sheegaynaa marka hore okay adanka bacdi waxaan leenahay kulligood waxaa ka soo jiidaa from waxaan leenahay orders aan leenahay laakiin ogow customer name kuma jiro orderska kuma jiro customer name so habka soo jiidanayna waa kana example kan inaga siiyeen waa meeshaan waa meesha inner join ka meesha imaanaysa inta waa inner join waxaa kaloo dhigi kartaa join oo dhigi kartaa qasama join oo dhigi kartaa isku meesha waa so inner join waxaan isku xireynaa ama aan isku dhijinaynaa labada table okay inner join waxaan leenahay waxaa ku xirtaa orderskan waxaa ku xirtaa customers tableka customers ku xir on meesha waaye on haddaa aragto waa meesha camal so ontaas waxay u taagan tahay meesha ay kala mid tahay ama meesha ay u taagan tahay meesha waxaan leenahay orders that customer ID I think customer ID gan waa lowercase intaan aan filaya no lowercase maaha customer ID ga meeshay kala mid tahay waxaan leenahay customers that I think inuu yahay customer ID okay yeah customer ID so halkan waxaan sameynaa hadda waxaan niri oo kaliya intana capital waaye waxaan niri waxaad ka doorataa informationkan waxaa kasoo jiidataa labadan information waxaa kasoo jiidataa tableka orders laakiin orders ma lahan customer name waxaa sameysaan niri horta marka hore waxaa ku xirtaa tableka loo customers meesha tablekan order customer ID giisaan uu la mid yahay tableka customers la dhaho ID giisa okay customer ID giisa so waa in conditionkaas waa inay run ahaato haddii kale ma shaqaynayso okay so taasaan sameynaynaa marka hore kabacdina waxaan tusaaya waan sii wadayna horta marka hore aan raangareyno waxaa laga qalad inuu noo soo saaro okay so let's see I think anagaa qalad sameynay sorry ID so hal qof inuu noo soo saareen informationkiisa okay so dib aan ugu laabano exampleka inner join customers where close na kuma inaan darin okay no where to on time waaye meesha waa camal okay so where uma baahno laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano exactly why uu usoo saaray customerskan badan so select orders from orders inner join let's say join on database join isku meesha waaye customers on orders okay so waxaan sameyn karnaa yes so waan ku dari karnaa maxaa la jira where so where waxaan sameynaynaa marka waxaan sameyn karnaa where waxaan leenahay customer ID gan ama order ID gan uu yahay 55 you're right because waxaan rabnaa bis hal qof inaan soo jiidano hadda wuxuu noo soo jiiday qof kastuu noo soo jiiday basically okay where orders customer ID is equal to 55 from orders kan ka hormarinayna okay statement join tag okay semicolon baa ku jirtay markii hore macna oh you're right
why u diidaa halkan sometimes that's why wuxuu leeyahay rules kala duwan uu leeyahay okay so waxaan sameynay marka waxaan soo jiidanay customers oo dhan waa inta so kan wuxuu sameynayaa customers oo dhan magacyadooda soo jiidanaya laakiin annaga waxaan rabnaa bas inaan doorano hal qof 55 meeshuu yahay so waxaan ka hormarinaynaa inta where orders that customer ID is equal to 55 meesha waxaan naga rabaa inaan ka dhigno string ma hubi boqol okay so dhima laha example meel kale noqon tusaa example ka so let's go back here left join waa isla meesha waaye laakiin wuu ka yiri duwan yahay wax yar waan geli doonaa so let me aan fiirina marka waxaan leenahay inta waxaan ka raadinaynaa Google SQL inner join where clause aan ku dareynaa so haddii ay qof oo xifdiyo ma jiro SQL commands-kan kulligood so haddii aad ku shaqayn waa mid waa just waa raadinaysaa un base example kale aad raadinaysaa example kale aan raadinaynaa let's see where inner join okay so akana yeah so waan saxnayn laakiin arina waa nooga diiday so inaan ka dib marino waa meesha ugu dambeyso waa so waxaa noogu jirtay calaamad comma noogu jirtay ama semicolon so saasuu nooga diidanaa okay so halkan marka waxaan niri marka hal qof noo soo jiid waxaan niri un meesha orders that customers ID uu yahay 55 okay waana gelin kartaa calaamadda dambe waa ugu dambaysiin kartaa okay so saas waa marka laba table sida isku xidha hadda table cusub inoo sameeyay 4 record ku jiraan oo leh wuxuu leeyahay fieldskan kala duwan uu leeyahay fieldskan waxaa laga soo jiitay un tablada kale so saasaa loo sameeya markay noqoto inner join wax su'aala any question tan waa inner join-ka inner join hadaa maqasho waa saas waa laba table informationka iska kala leeyihiin ka soo jiido ah so hadduun informationkaas jirin lagama soo jiidi karo so hadda haddaan fiirino kanaan copy leenahay hadda customers haddaan fiirino waxaan rabnaa ka soo jiidin karnaa so waxaan rabnaa soo jiidina addresska so just waa ku dareynaa le meeshaan inta le ku dareynaa waxaan leenahay customers dot waxaan leenahay customer address ama address bas so hadda haddii aan raan garayno kan wakaasa addressku noo soo jiidaya inta waxaa ku dari kartaa city waa inaad dhahday customers city okay waxaa kale oo jiro hab kale waxaa jiro kan loo fududeeyo waxaa samayn kartaa waxa loo hadda inta ku arkayno waaye so waxaan leenahay as waxaa samaynaysaa basically maxaa la dhihi jiray fieldka so hadda meesha markasta dhahayna soo jeeda customers dot customer name customers dot address inta waxaan leenahay orders dot customer ID dada fieldka magaceeda soo gaabin kartaa oo waxaa ka dhigi kartaa hal xaraf bisa ka dhigi kartaa so taasna waxaa jirto bahal isticmaal loo as let me check the syntax okay let's see gonna join on okay into naga tusayde malaha okay alias ala daha thinking la daha akana SQL alias okay so as alada so select a column name as and then kabacdi waxa gelinaysaa magaca rabtid markaas so ama column name hada ama table name ha ahaado so halkan meesha hadda aan ka dhigayno orderska yaan ka bedeli karnaa right there so waxaan leenahay from orders as waxaan leenahay aan leenahay ka soo qaad so meeshii orders ku jiraan oo dhan waxaan ku bedeli karnaa so inta qorax hadaa ku bedeli kartaa meeshaan hoose
meeshan okay tan waxay ka caawinaysaa marka inaan maanta dhan ku soo celcelinin orders inta waxaan dhigi karnaa in join customers as inta ku dhigi karnaa as C aan leenahay okay so meesha customers ku qoran tahay C la ku soo caawinaysaa okay so see here see so habkan waxay ka caawinaysaa in aad wixii fududeyso xataa waxaad samayn kartaa fields kana samayn kartaa waa soo gaabin kartaa hadda daan raan garayna same thing waaye fields kan oo magacyadaana waad soo gaabin kartaa meeshii aad markasta aad raan garayn lahayd dhihi lahayd customer name aad dhihi lahayd waa gaabin kartaa inta waxaad leedahay as so hadda dii aan rabno customer name kan inaan bedelno waxaan leenahay just a name leenahay kama soo qaado so asta waxay ka caawinaysaa markasta waana capitalna laga dhigaa inta badan waxay ka caawinaysaa inaad fieldska iyo tableska waxa dhan aad rename ku samayso laakiin ogow tan database ma gelayso so information hadda waxaan aan raan garaynayno database isma bedelayo waa waxaan sameynaynaa select aan sameynaynaa ogow database-ka daarto inaad bedeshid waxaa u baahan tahay update ama delete ama insert u baahan tahay select-ga waxa ka bedelayso any question wax su'aalaha any questions okay so inner join ka sameynay outer join kan asagana waa sidoo kale waa laakiin waa just table ka hal table dooranaysa so let's look at the outer join let's see inner join outer join so akana so left outer join iyo waxa jiro right outer join waxa laga wadaa marka labadan circle waa table waaye meeshaan dhexe iska dhex maraana waa meesha ay informationka ay qaybsadaan waaye so micnaheedu waxa marka inta marka dhahdo left outer join and actually and description keeda caadi akhrina halkan let's look at it W3 schools have no hayabo let's see outer join left okay inner left join okay left join so huleyahay in some databases left join is called left outer join so left join and left outer join is commercial so into left join key returns all records from left table left join marka dhahdo wuxuu soo celinaya information ka left table ka ama table ka bidixda bas soo celinaya that's matching the record from the right table or lamid ah information ka table ka midigta so inta daan ku bedelna hadda left join inta ku bedelno halkan hadda macnaheedu waxaan ka wadnaa table ka bidixda ah oo ah kan orders ka information ki markii uu lamid ahaado customers waxaad soo celisaa clear information kaas bas soo celi macnaha soo celin customer name kan waxaan automatically soo celina waa ku dayganaa haddii kale waxay noqonaysaa inaan kan hagaajino xir okay so wuxuu soo celiyay kulli information ka so tan wax ka qaldan yihiin syntaxkeeda fiirina hadda inta marka so waa kana example so waxaan sameynay customers kan aan soo jiidanay kan waa isdaawo mar leh waaye waa hadda waxaan noo yaalo on dhinaca kale u gudbina leebis waaye okay so let's do that kanaan raan garaynayna let's run this so kan micnaheeda halkan hadda waxaan sameynay waxaan soo jiidanay customerska magacooda iyo orderska ID-gooda soo jiidanay kadib waxaan niri waxaad soo jiidataa customerska waxaad left join ku samaysaa ama ku dhijisaa orders okay so kaas soo celi information kaas let's see the left join returns all records from the left table customers even if there is no margin on the right join so sababta aan u haysan halkan null u noogu yaalo macnaheedu waxa waaye qofkan orders ma lahan ka wada so wuxuu soo celinaa orderska isleeyihiin
customerska ku jiro magac ku jiro iyo orders isla soo celinaya laakiin haddii uunan jirin xataa orders uu soo celinaya customerka basically so taas xalla left join tii hore sababta noogu shaqeynayna maxaa yeelay order kasta waa inuu lahaado customer marka saas uu soo celinaya waxa dhan okay any question wax su'aal left join marka noqoto okay so right join waa opposite ka so uma baahan inaan waqti badan ku bixino cross join aa jiro badana cid isticmaalaysa ma arkayso cross join non equality join ama self join waxa kaloo jiro full join oo ah kulli soo celi information kala soo celi so full join hada aan macnaheedu waxa waaye labada table information kooda dhan soo celi so I think in waxay ka beddelnaa let's look at it full join here okay so full join ka wuxuu sameynaya marka wuxuu soo celinaa information kooda full join full arrow join he returns all records when there is a match on the left side table or right side table so markii aad information ka hesho labada table haddii information ku jiro qasab ma inuu informationka uu isku mid ahaado isku match karayaan soo celinaya kulli information kadan okay so saan u eegay kaasna so haddii aan run karayno waa kana oo full arrow join aan ahayd so asaga waxaan soo koobi karaa inaan shaqeynin dib ma laha laakiin macnaheedu waxa waa wuxuu soo celinaa information anu soo celinaya labada table information keedu iyo hal table ka dhigaya basically okay so joins ka marka intaas waay macnaheedu waxa waaye inner join kana ugu badan marka qaar kood left join ama right join isticmaasha laga yaabaa laakiin inta badan waa inner join ka wax su'aala any question وبدنا وحيلا أدق مركز نقطة database كا قيبت أدق joins كام وحيلا أدق SQL كا alright okay so هذا السؤال لقى قبل we can move on okay so markii aan ka gudubno marka joins ka waxaan galeynaa normalization kan waqti badan kuma bixinayno laakiin waa wax muhiim concept muhiim waaye okay so normalization wuxuu yahay database normalization waxa waa concept ama arrin aad muhiim ugu ah marka noqoto dhinaca database-ka ama database marka la dhisayo database marka la dhisayo so qof haddii hadda lagu xisaaro database is haddaadan garanaynin normalization waxyaalaha iska kaa darsamayo database-kaadana wuxuu noqonaa mid isku dhex daadsan ama waxyaala ka qaldan yihiin hataa haddaad aad u dadaasho waxaa laga yaabaa in waxyaala ka qaldan haddaad raacdo shuruudaha loo dejiyo normalization-ka laakiin way ku fududaanaysaa inaad database reliable oo scalable aad dhistid reliable scalable waxaa ka wadaa database haddii dad waxay ku jiraan ama milyamaad wax ku jiraan isku si u shaqeynaya la rabaa inaad samaysid marka so aan fiirina marka inta wuxuu leeyahay the relational database model is different from object model when we use JavaScript. In JavaScript we can add arrays or nested objects in our entities. A client can have address so inta basically wuxuu leeyahay so ma xasuusitid markaan sameynaynay markaan ka hadlaynay arrimaha la xiriiro waxaan aan tirtiro let's refresh okay markaan ka hadlaynay arrimaha la xiriiro JavaScript so JavaScript waxay leedahay data types ilaa soo ma iyo luqadaha dhanba data types leeyihiin data types ka waxaa kamid ah camal objects ka mid ah oo qabanaya waxyaalo badan iyo arrays ka mid ah right so arrays na waxay qabanayaan waxyaalo badan right so arrays waxay qabanayaan waxyaalo badan oo isla objects waxa gelin kartaa waa key pair value all that stuff right laakiin markay noqoto SQL ma laha waxaas SQL ma laha markay noqoto data types ma laha data types way leedahay laakiin habka u taqaanay ma aha right habka u taqaan ma aha so data types ka SQL
yaana dhihin ma laha laakiin ma ahan exactly sida u taqaanay so SQL markay noqoto laakiin waxay leedahay data typeskeeda waxa waaye waa single value meesha halkan object uu qaadan karo waxyaalo badan oo uu qaadan karo information fara badan arrays information badan qaadan kartaa SQL ma qaadan karto waxyaalo badan so halkii meel ama halkii data waa inuu hal wax ku jiro so haddii noqoto hadduu noqdo maxaa la jiray ka hadda ka hadlaynay oo ah let's go here kan hadduu noqdo ID hadduu noqdo waa halkii field hal ID ku jiro right laba ID ma geli karta fieldkii farm name-ka waa hal farm name inuu ku jiro halkii robo inuu hal farm name ku jiro so ma gelin karta dhowr farm name ma dhex gelin karta meesha so shuruudaha jira marka loo dejiyey shuruudahaas asla fiirina marka so intana aan qeexna wuxuu yahay normalizationka is a process of designing or refactoring database tables for maximum consistency and minimum redundancy micnaheedu wuxuu ka wadaa normalization waa process lagu design gareynayo ama lagu naqshadeynayo ama lagu kala bixinayo oo refactoring lagu sameynayo database-ka tableskiisa si aad u heshid maximum consistency micnaha wax kasta oo lagu daro information kasta oo lagu daro si kasta u weyn yahay isku wax inuu soo saaro oo consistency waa isku wax joogta inuu soo saaro iyo minimum redundancy uu lahaado waxyaala soo la laabanayo in laga bixiyo meesha so redundancy-ga waxa waaye waxyaala soo la laabanayo ama marar badan dhacayo in meesha laga bixiyo oo la yareeyo okay so taas waa marka data normalization ku yahay okay so shuruudaha ama guidelines ku yaala waa kuwana marka guidelines kan inaan raacno waa 100% waana tan assignment-kan waan ku weydiinayaa guidelines kan inaan raacdaan so mid ugu horeeya waxaa shuruud number 1 each record has a primary key right record kasta on sameyno waa inuu lahaado primary key so taas waa shuruud number 1 shuruud number 2 waa primary key markaan dhahno waxaan ka wadnaa ID-ga ugu horeeya oo ah kii aan ka hadlaynay halkan bilaag markaan ka hadlaynay kan ID-ga data kasta waa inay leedahay ID haddiina ID lahayn ma shaqaynayso okay number 2 waa no field are repeated so fieldska waxaan ka wadanaa markaan fields ka hadlayno kuwaana ka wadnaa so ID iyo ID kale iyo ID kale ID2 ID3 looma baahno right so waxaan u baahannahay hal ID base haddii ay ID kale jiro waa inuu sabab kale ay jirto oo loo isticmaalo ID-gaas hadda kan camal saa ujeedid ID jiro iyo farm ID waa laba wax aan islahayn waaye right so waa inuu hal field inuu jiro waaye all fields related directly to the key data and fields ko dhan waa in ay wada xiriir la leeyihiin informationka ku qoran ama ku jiro meeshan rangerskan so waa inay shaqul ku leeyihiin so haddii rangers aad geliso intan aad geliso kaba soo qaad rangers aan dhahna la sii camal customers aan dhahno ood geliso halkan wax aan lahayn customers information aan customers uuna lahayn for example aad iska geliso wadanka maybe waxa laga yaabaa customerka wadankiisa laga yaabaa so let's say camal something or opposite ku ah customerka camal owner name camal iska gelisay owner name muxuu yahay what is owner name muxuu shaqul ku leeyahay marka noqoto customers camal ku soo qaad so taas laga wadaa markii la dhaho waa in informationka ku jira tablekaas ama fieldkaas ku jiro waa in uu la xiriiro tableka camal ama key data ugu horeyso each field entry contains a single data point waa tii aan ka hadlayna oo ah ha soo celcelinin so tan waxay uga duwan tahay actually waxay uga duwan tahay tan markii aan gelino information I wish inaan halkan ku sawiri karo let's refresh aan dhahno tan waxaa laga wadaa micnaheeda so let's say camal table haysataa tablekan waxaa haysataa meel oo name haysataa so name waa tan intan ID-ga waa so waxaa la rabaa marka in aadan halkan dhihin Maxamed and then comma Abdi and then comma Farhan right
maxaa yeelay waxaa la rabaa meeshaan ID-gan ID1 inuu leeyahay hal magac bas ah so maxamed bas ah and then halkan ka xir information kala daartid maxamed ah so address camal daartid intana gelis addresskiisa ka bacdina ninkan abdi aad inta u dhaqaajisid alraasas alraa marka lama rabo tan waa qalad oo lama rabo in uu saan ahaado so tan looma baahno so this is wrong amal ansarna x oh that's a fail never mind so saas lama rabo marka taas laga wadaa marka la dhaho each field contains a single data point and there is no redundant entries macnaha laga wadaa information soo la laabanayo inuu ku jiro meesha lama rabo so for example amal inaad dhahdo let's say amal inta waxa gelisay maxamed hadana inta waxa gelisay maxamed hadana waana isla qofkii la ugu inta waxa gelisay maxamed wuxuu leeyahay saddex column uu leeyahay saddex row uu leeyahay maxamed oo kala duwan taasna waxay keenaysaa qaladaad badan keenaysaa qaladaad badan keenaysaa taas marka isla fiirnayna insha Allah so shuruudaha marka saraac marka sameynaysa database waxay ka caawinaysaa in aad database sax oo clean ah dhisto so waxaan marka exercise yar inaan isla sameyno oo aan hurdada ka kacno xir and so let's see marka table halkan noo yaalo right table aan sameeyna halkan table kana waxaan rabnaa marka in ay la iga caawisaan oo inuu raacayo shuruudaha in kale inaan isla fiirino okay table ka marka horaan uga soo hadalnay arrimahan beerta so beerta namekeeda waa kana right and beerta waxay leedahay xayawaanaha ku jiro so pigs chicken whatever goat horses chicken cows xayawaanaha ku jiro so table kana sameeynay yaa ii sheegi karo table kan maqalada wax ma ka qaldan mise waa sax muxuu la yahay yaa ii sheegi karo table kan shuruudahan muxuu jebinayaa waa bila primary key ustaad so shuruudaha ugu horeeya jebinayo waxa kamid ah bila primary key no primary key and qaajitan wana xawaaye primary key okay pk alla soo gaabiya okay shuruuda labaad shuruudaha kale yaa ii sheegi kara uu soo noqnoqonayo maca redundant uu leeyahay so wajid animal 1 animal 2 animal 3 waxaas lama rabo so redundant okay waxyaalo kale yaa iiga sheegi karo ID-na ma lahan oo exactly so ID-na ma laha exactly so waxyaalaha obvious ka waxyaalaha ugu horeeya waa aragteen obvious ka oo qaladaadka ku jiro so table ka ma shaqeynayo this is very bad and qaladaad badan aan imaan karo markay noqoto arrinta la xiriirto table kan u sameeysan yahay database kan uu wareeraya wuxuu leeyahay what is this primary key ahaan oo isticmaal kartaa farm name laakiin waxaa laga yaabaa beer kale oo la dhaho Martin Farms inay imaadaa dhici karto so maxaa sameynaysaa markaas so waxyaalo badan qaladaad waxaa laga yaabaa in xoolo kale ku soo darto so let's say amal waxa ku soo darto camel ma waxa sameeyay field kale oo la dhaho camel la sameeyay oo database-ka dhan bedelaysa schemadiisa soo eka so qalad weyn halkaas ka imaanaya so let's say amal waan saxnay waxaan sameeynay just we corrected waxaan sameeynay farm ID and farm ID aan siinay ka bacdina waxaan sameeynay waxaan niri farm name magaceeda animals kana hal meel isku geynay iyo ii sheegi kara marka meeshaan shuruud kan uu fiicay laakiin kii hore uu ka fiicay laakiin shuruudo kale uu jebinaya kan laftirkiisa yaa ii point garan kara shuruudu jebinaya ama just iska qaaxi don't have to shuruud qasabkeeda ina sheegto shuruuda laftirkeeda maxaa isleedahay maxaa ka qaldan waxbaa lagu soo celceliyey oo koma ku dhex jirto exactly so meeshaan this is no tan waxaa waaye macnaha waa tii hadda ka hadlayna aan tusaayay maxamed cabdi hebel kulli ay ku jiraan hal meel right hal row ay ku jiraan taas lama rabo that's wrong waaye so we need to get rid of this tanna qaladaad badan ka imaan karo oo ah let's say amal waxa ku dartay xayawaan cusub camel ku dartay waa inaad halkaan aad comma geliso let's say amal waxa rabtaa database-ka inaad information-ka aad soo jiidato fiilkan marka la soo jiito waa lagu wareerayaa ogowna SQL ma lahan array ma lahan objectsna ma laha
so waxaan wixii yihiin maxaa lagu ogaanaya see lagu kala shaandheynaya so malahan macnaha wax kala shaandheynaya ma jiro intaa dhan wuxuu u qaadanaya asaga hal wax u qaadanaya database so uma qaadanaya waxyaalo kala duwan okay so we need to inaan fix gareyno so inta waxaa leedahay while we have now eliminated first two issues we now have multiple entries on one field so it's separated by comma so tan waayo there isn't a good either or as an example of demonstration there is no array data type ma jiro database kama laha waxaas array iyo waxaas mala so keep that in mind so bedelnay marka so let's fix this so waxaan ku bedelnay animal key waxaan ka dhignay primary keyga kabacdi animal key waxaan siinay mid kasta field gooni aan siinay saa ujeedid that's good and then berti aan siinay laakiin hadda intana qalada ka jiro this is a problem so inta wuxuu leeyahay now we solved the multiple field issue but we created repeating data so repeating data aan sameynay waa kana waa beerta magaceeda soo laalaabanayso iyo revenue-ga whatever haddii beerta information kala akhrtid sida revenue-ga camal so this is a issue marka so dhibka inta jiro waxaa marka yaa ii sheegi kara marka xalka ugu fiican oo waxa dhan lagu kala habeyn karo you can tell me there's xalaa jiro oo waxa dhan lagu kala shaandhayn karo foreign key laakiin foreign key muxuu u baahan yahay inta haddaan hadda foreign key geliya may xalin arrintaas ID miyaa lagu darayaa ID uu leeyahay waa kana intan uu ku leeyahay intan waan ku leenahay beerta isku dayna beertina isku dayna inaan ID u sameeyno waan isku dayna animalka inaan ka dhigno primary key taas ma shaqeynayso okay mid ma shaqeynay one to many relations relationships maybe in shaqeyso so halka waxa waaye multiple tables in la kala bixiyo waxa dhan so we go back all the way in aan u sameyno beeraha table xayawaanada table in aan u sameyno revenue-gana table kabacdina foreign key isticmaalna saa iskugu xirno taas waa xalka so mar haddaa aragto wax isku dhex daadsan isku dhex jirjiro wuxuu u baahan mid kasta tablekiisa gooni in loo sameeyo kabacdina foreign key la isticmaalay u baahan yihiin okay so waxaa jiro intan wuxuu ka hadlayaa anomalies waxa la dhaho anomalies micnaheedu waxaa waaye arrimo iska imaan karo oo qaladaad u imaan karo mar raba inaan gudaha usii kala si aan waqti u badbaadiyo qaladaadkan ka hadalna micnaha wixii hadda sixayno dhan isku dayna inaan saxno dhan database-ka qaladay u keeni karaan oo qaladaad waaweyn weliba oo database-ka dhan tirtiri karto ama micnaha isku dhex daadin karta database-ka ama slow ka dhigi kartaan ka wadaa ii keeni kartaa so that is the issue so inaan arrintaas daarno inaan xallino waa inaan taybalo kala duwan u sameyno mid kasto okay so hadda marka wixii hadda aan sameynaynay oo ah xayawaanada waa kana rangerskan meel noo dhig table kalaan sameynayna la dhaho animals okay so tableka marka animalska wuxuu la xiriiraa marka ID aan u sameynaynaa oo xayawaan kasta ID gooni uu leeyahay oo gooni u ah 20 camal is primary key and then inta waxaa gelinaysaa just the animal name aa gelinaysaa waa farjar iska dheh 255 and then waxaan leenahay soo jeedid and then primary key aan gelinaynaa so animals waa inay beer leeyihiin so beertii leeyihiin aan u sheegaynaa so xayawaan kasta beertiisa ayuu isku aadinayaa so waxaan leenahay farm ID okay so this is an integer 20 iska dheh and one foreign key and then waxaan u sheegaynaa meesha uu leeyahay iyo ID-gu isku aadinaya soo jeedid so saasaan u xallina marka so animalska intaa gelinaysaa beerihii magacooda intaa gelinaysaa and then kaba soo qaata revenue camal inta ka dhigbo revenue spellingkeeda but revenue ka dhigba halkaas so and then that's it so halka dhan wuxuu ahaa in la kala shaandheeyo la kala bixiyo kabacdina foreign key isticmaasha any question wax su'aal so mar haddaa aragto laba data isku dhex jiro waa inaa kala bixiso always table cusub u samee waxay rabta ahaato so kaba soo qaada hadda waxaa la soo geliyey baabuurta beerta looga shaqeynayo so qalabkii ama equipment table gooni ah u samee beertiisa ku xir
whatever waxa laga yaabaa equipment-iga inuu qof gooni shuqul ku leeyahay so let's say camal equipment sameynayna table oo cusub waxaan intusaa laba foreign key inaad gelin kartaan equipment qalabaadka waayo beerta looga shaqeynayo kana aan zoom out ku sameyno xeer qalabaadka beerta looga shaqeynayo so just id each one id inuu leeyahay qasab waaye marriba waqti badan inaan ku qaato toona iska dheh primary key boom and then waxaan gelinaynaa name iska dhigi kartaa ama equipment name la iska gelin kartaa xarta magacaabi kartaa taas laakiin waa inuu consistent ahaato so database markaa sameynaysid waa in ay wixii ay islahaadaan so haddii aad tan soo gaabiso tan camalna soo gaabin kartaa so wixii consistency ama in ay isku mid ahaadaana fiican database-ko dhan so and then save so and then okay marka equipment magaceeda so hadda waxaan rabnaa marka equipment-ga qofa iska leh ama qofa shuqul ku leh ama maamulayo iyo beerta uu leeyahay labadaba inaan gelino waaye so tan waxaan leenahay marka farm id iyo waxaan leenahay waa integer toona iska dheh foreign key waa sida kuwa kale oon kan dhowr jeer aan sameynay kaas that's good so kaas waa noola xiriirinayaa so wuxuu leeyahay waa kaas halkaas laakiin waxaan rabnaa ku darno foreign key kale oon leenahay halkii equipment-ibo qofaa markasta gacanta ku hayo so tan waxaan leenahay marka range ama rangers iskale kan awl wuxuu ahaa rangers and then waxaan leenahay just waxaan leenahay integer is fine foreign key so revenue hadda laakiin rangers oo ahaa soo jeedid so laba falaaro diray mirna waxaa waaye wuxuu leeyahay halka equipment-iba qofaa gacanta ku haya oo ka mid ah dadkan oo rangerska ah marka ay noqotona equipment kastana waxay leedahay beer gooniye leedahay beerahan ka mid ah okay any question wax su'aal معن so foreign key role kiisu waxaa miyaa inuu tabladaas isku xirxiro isku aadi exactly so shaqadiisana waxaa waaye inuu dhaho tablekan yuu shuqul ku leeyahay wax information ku jira tablekan yaa iska leh oo ama yaa micnaha yaa iska leh ama yaa yuu shuqul ku leeyahay relationshipka xiriirka ka dhexeeya tablada kale waa maxay waxaas waa badanaana foreign key markay noqoto id-ga primary key-gu la xiriiraa so la isla shaqeeyaan so tableka haduuna primary key lahayn foreign key adag si loogu sameeya any question okay so just waxaan ku dhamaystiraynaa marka kuwan money one to one and money to money so maybe let's take a break here 5 minutes and then inshallah usoo laabanayna so let's take a 5-minute break okay I'll be back
Okay, soo laabta markaa. Waa la maqlaan filaya. Okay. Hey, Ustaad. Good. Marka waxaan gudaha u galaynaa marka relationship-yada kala duwan ee database-ka ama wada xiriirkii leeyihiin markay noqoto table-ada kala duwan ama information-da ku jira datada. So waxay u kala baxaan saddex nooc. Waxay u kala baxaan one to many, money to money iyo one to one u kala baxaan. Okay. So haddaan fiirino marka haddaan aan casharka qaybtaas qaybta ugu hooseyso waaye. So when modeling data for our systems, we start noticing relationships that exist between entities. Macnaha wuxuu leeyahay markaan database-ka aan hagaajinayno waxaan arkaynaa waxyaalo sida iskuulada xiriiraan wax. For example, hadda tii aan ka hadlayno ahayd beerta. So hadda beerta waxay leedahay relationship leedahay. Waxay relationship leedahay waxyaalo fara badan ee relationship leedahay. So taas arkaysa marka relationship-kaas ama habka iskuulada xiriiraan. Those relationships need to be added in our result. The way we model relationship between our entities influence how easy or difficult querying the data will be. Habka aan iskula xiriirinayna datada yaa waxay macnaha noo sheegaysaa inay adkaan doonto in hadhowdii la soo jiito information-ka iyo inay fududaato. Wuxuu leeyahay marka saddex nooca jiro waa kuwaana one to one, one to money and money to money. Determining how the data related can provide a set of guidelines to table representation and guidelines foreign keys to connected set table. Macnaha haddaan ognahay habka data iskula xiriirayso waxay naga caawinaysaa in aan hore isii ogaano inta foreign key u baahannahay iyo waxyaalahaas oo dhan inaga sii caawinaysaa. So marka aan fiirino marka one to one relationship marka fiirino tan marka badanaa waxaa arkaysaa in ay aad u badnayn laakiin waa muhiim. Wuxuu leeyahay marka imagine we're storing financial projection for our series of farms. Kaba soo qaad beerihii hadda ka hadlaynay waxaa laga yaabaa information-ka dhaqaalaha macnaha u imaan doono inaan xareyna u baahannahay. We may wish to attach fields like farm name, address, description, projected revenue, and projected expenses. Waxaa laga yaabaa inaan waxaanoo field-kan kala duwan aan ku dejino qaybta farmka. We could divide those fields into two categories. Fields-kan oo dhan waxaan u kala gudbin karnaa laba qaybood. Information related to the farm directly, information la xiriiro beerta, iyo information related to the financial projection, iyo information la xiriiro dhinaca dhaqaalaha beerta. We could use farms and projections. Waxaan isticmaali karnaa laba table oo la dhaho midna farms midna la dhaho projections. Projections-kana waxaa waaye dhaqaalaha imaan doono wuxuu yahay. So taas maxay noqonaysaa marka one to one relationship. Macnaheedu waxay noqonaysaa one to one relationship. This is to say that every farm has exactly one projection. Tan macnaheedu waxaa laga wadaa beer kasta waxay leedahay hal projection ama hal dhaqaalo ay leedahay. Halkii dhaqaalana wuxuu leeyahay hal beer. Saasaa laga wadaa. Right? So hadda inta camal example-kan naga siiyan halkan. So beertu waa tanaa dhaqaalihiina waa kana. Right? So foreign key isticmaalina oo beerta foreign key-geeda. So tan macnaheedu waxaa marka one to one relationship aa la dhahaa. Waa halkii beerba waxay leedahay hal dhaqaalo. Waxaa laga yaabaa marka in aad dhaqaalooyin kala duwan aad ku darto halkan. So waxaa laga yaabaa inaad ku dartid aad dhahdid camalka soo qaad beerta waxay leedahay dhaqaalo kala duwan. Taas waxay noqonaysaa one to money noqonaysaa markaas one to money relationship. Laakiin tan hadda saa u jeedno one to one waaye. So taas waa marka. So example haddaan sawirna camal one to one relationship-ka. Let's draw that. Where's my drawing place? Okay. Refresh. So haddii aan ka soo qaadano one to one. So one to one waxaa waaye marka waa farm iyo wixii kale uu leeyahay. So kaba soo qaada camal farmku wuxuu leeyahay waxyaalaha hadda fiirinayn waxaa ka mid ah. Wuxuu leeyahay animals. Right? Ama animals ba ma ahan. waxaa beerta waxaa laga yaabaa xoolo badan inay leedahay. Waxaan leenahay owner camal aan leenahay. So tan run way noqon kartaa been way noqon kartaa. Halkii beer waxay leedahay hal owner ama qof iska leh leedahay. Halkaas qofna wuxuu leeyahay hal beer. That's it. So one to one ka lagu sheegay saas camal ah.
example badan ka jiro oo macna example marka laga sii fiican u fahmaysaa. So for example hadda fiirna wuxuu ahaa kaba soo qaad camal guriga degan tahay qoyskaas hal guri leeyihiin. So family iyo waxa waaye iyo house, right? So house wuxuu leeyahay hal qoys, right? One family and family kan wuxuu leeyahay hal house, right? So one to one ala dhaha, one to one relationship Allah tan laakiin ownerka waxa laga yaabaa inuu leeyahay beher badan. So waxay noqonaysaa markaas one to many relationship noqonaysaa. So dhinaca bidixdaana laga aqriyaa markaas one to many relationship kana one to one relationship. So marka lagu sheegaa marka one to one relationship ama one to one relationship marka lagu sheegaa saan waaye. Okay, wax su'aala markii noqoto one to one relationship. So one to one relationship waa kan ugu fudud waaye, waa hal wax iyo hal wax, that's it. Macnaha ma aha waxyaalo badan. Okay, one to many relationship marka la dhaho marka example-ada aan ka qaadan karno waxaa ka mid ah customer iyo orders. So hal customer wuxuu lahaan karaa order fara badan, waxyaalo badan uu dalban karaa. User iyo posts, qof user ama qof oo website ku jiro wuxuu sameyn karaa postero kala duwan, sameyn karaa waxyaalo soo qori karaa. Halkii post waxay lahaan kartaa commentyaal fara badan. So one to many relationship waa saan camal laga wadaa, right? Orders kan ma lahaan karaan customer kala duwan, ma lahaan karaan, right? Halkii order waa inay leedahay hal customer, haddii kala buuq aan ka dhacaya anaa iskale alaabtan anaa iskale iyo meesha lala soo booda. So taas qalad weyn meesha ka dhici kara. Okay, so one to many relationship waxaa arkaysaa meelo badan ku buuxaa. Okay, any question one to many relationship? All right, good. Fahanka le waxa ugu muhiimsan inaad fahantid waxaan maxay yihiin one to many relationship muxuu yahay. Okay, money to money relationship marka. So tan waa marka tan oo dadka ku weeraraan. Money to money relationship waxa laga wadaa waxa ka dhaxayn karo laba table waxyaalo badan. So midkaan waxyaalo badan lahaan kara, midkaan waxyaalo. Examples waxa ka mid ah orders and products ka mid ah. Orders and products. Okay, maxaa laga wadaa? Okay, so halkii product, so haddii aan ka iska tirtirno halkii product waxay lahaan kartaa orders fara badan, and halkii order wuxuu lahaan karaa products kala duwan, right? So orders iyo products waxay lahaan kartaa order fara badan ay lahaan kartaa, right? Order kana wuxuu lahaan karaa products badan uu lahaan karaa, right? So for example markaa gadanaysa ka soo qaad dukaan waxaa gashay Amazon gashay waxaa gadatay 10 waxaa gadatay 10kaas wax waa orders waa kala duwan, right? Ama waxaan ka wadaa 10 wax oo hal order hal product ah gadatay, right? So taas waxaa marka waxay noqonaysaa markaas one to many, waxay noqonaysaa money to money noqonaysaa. Okay, example kale aan ka siinayaa. Also halkan wuxuu leeyahay an order can have many products and same product will appear in many orders, right? Halkaas product ya meelo badan ka muuqan karto. Example kale waxaa books ka. So halkii book, a book can have more than an author. Book wuxuu lahaan karaa hal author ka badan lahaan karaa, laba qof isla qori karo. Markii noqoto author kana wuxuu lahaan karaa bugaag badan uu lahaan karaa. Okay, so that's not how money to money relationship works. Okay, so that's money to money relationship. Okay, let's see marka example can so money to halka wax u baahan tahay ka ogaato marka dhaqto money to money relationship waxa u baahan tahay saddex table u baahan tahay. So hadda ka soo qaad beerta camal ka hadlaynay waxay leedahay beerta halkii beerka waxay leedahay xayawaano badan ay leedahay. So hal xayawaan ma laha dhowr xayawaan ay leedahay. Okay, so haddaan rabno marka in aan wada xiriirino labadan waa table gooni inaan sameyno oo la dhaho waxaa la lahaa magacu leeyahay intermediate table alla kan intermediate table waa table gooni ah oo shaqadiisa ay tahay in oo labadan table uu isfahansiiyo. Okay, so money to money hadduu relationship yahay always waxa u baahan tahay intermediate table oo la gelinayo bas foreign keys
wax kale lama gelinayo macnaha waxa la gelinaya of course ID-giis waa la gelinaya kan I don't know ID waxa uga boodeen ID foreign key macnaha waxa labadan foreign key isleeyihiin labadan foreign key isleeyihiin saas camal laga wadaa right so labadan foreign key isla shaqeeyaan so macnaha waxa farm ID1 iyo animal ID3 hadaan fiirino animal ID3 waa kana farm ID1 uu leeyahay okay any question okay so just ina video kala daawata ama akhriso saasa ku fahmaysaa laakiin muhiimadda waxa ina fahanto marka aragto table wuxuu yahay tablekan muxuu yahay ma 1 to many ba mise waa 1 to 1 muxuu relationship ka dhaxay muxuu yahay tablekan kale okay all right so let me know haddii su'aal jirto waxaan fiirinaynaa assignmentiga quickly assignmentiga linkigan waan soo gelinayaa waxaan soo gelin doonaa insha Allah meesha Slack-na soo gelinayaa so Node.js Node SQL advanced allaha laba waxa laga rabaa assignmentiga inaad samayso midda hore waxa waaye inaad ka jawaabto su'aalaha ku jira query-gan so waa sidii kuwii hore camal waaye basically waxaan ku weydiinayaa kaliya inaad samayso waxaan adigoo isticmaalayo maxaa la jiray inaan geliyo linkiga halkan adigoo isticmaalayo meeshaan playerka maxaa la jiray playground-kan adoo isticmaalayo inaad samayso so waxaa W3 schools and then waxaa raadinaysaa SQL try it out waan idiin soo gelin karaa no problem midda labaad waxaa marka su'aalahana waa kuwan isku meesha leh waaye filekaasaa soo gelinaysaa laakiin midda labaad waxaa waaye table aan ku siiyey tablekan waa inaan normalized ma ahan so waxaa rabaa inaad ka dhigto inaad sharaxdid at least hal paragraph inaad soo qortid waxaan dhihi lahaa ka badan soo qor oo sharaxayo sababta uuna u ahayn normalized u ahayn oo daatiis ay u qaldan tahay halkana inaad siisaa laga rabaa and then stretch ka jiro intaas laa bas any question wax coding lama sameynayo sorry wax coding lama sameynayo so on just su'aalahaas laga jawaabaya iyo SQL-ka any question okay then wax su'aal jirin halkan ku ekaysiinina insha Allah soo dadaal insha Allah casharkan waa casharkii ugu dambeeyay qaybtan kadibna waxaan gelaynaa sprinting gelaynaa so waa kana sprintiga casharkiisa aan ka shaqeynayaa so insha Allah maanta oo ah Friday ilaa haysataan Tuesday soo socoto talaada soo socoto arbacadana insha Allah waxaan bilaabeynaa sprint projectiga soo dadaal insha Allah waxaan hore qaybtan bas ka bacdina project weyna dhisayna haduu la yiraahdo so dadaal khayraad rajayna assalamu alaykum